رئيس الوزراء دولة إثيوبيا عصوب دكتور أبي أحمد oo daraad xafiiska warbixin ku siinayay hogaanka ciidamada difaaca dalka Itoobiya ayaa u sheegay in dalkiisu dhisay mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan qaaradda Afrika dhanka dhulka iyo cirka isla markaasna uu dhisi doono xuduudiisa dhanka badda. Itoobiya oo ah dal aan bad lahayn ayaa la isweydiinayaa waxa uu yahay hiigsigeedana ah inay dhisato ciidamo badda ah. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo amaanay heerka uu gaadhay ciidanka qaranka ee dalka Itoobiya ayaa soo bandhigay hiigsigiisii ugu weynaa waxa uu yiri marka la eego dadaalada la sameeyay sida loo dhisay awoodda ciidankeena qaranka waxaynu dhisnay mid ka mid ah ciidanka ugu xoog badan qaaradda Afrika ee dhanka cirka iyo dhulka waxaynu mustaqbalka dhisi doonaa awoodeena dhanka badda. sidaasi ayuu yiri Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Fana Broadcasting Corp. warbaahinta Bloomberg oo arintani wax ka qortay ayaa isku dayday inay la taliyaha dhanka ammaanka ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya arintani wax ka weydiiso laakiin may suurtagelin jawaabo telefoon oo ay u direen. sida ay baahisay Bloomberg waxaa hadda Itoobiya leedahay macadka tababarka dhanka badda oo culumta injineeriyada iyo farsamada korontada bara sanadkii ilaa iyo 500 arday isla markaasna doonaya inuu gaarsiiyo sanadkii 1000 arday sida laga soo xigtay website-ka macadka ee Lektana. hogaamiyaha cusub ee Itoobiya waxa uu bishii dhamaatay heshiisyo dhanka dekedaha ah la gaadhay waddanka Suudaan oo saami ka siiyay dekeda Port Sudan, dalka Djibouti oo saami ka siiyay dekedeeda iyo Kenya oo dhul ka siisay dekeda Lamu. horey waxay Itoobiya saami 19% ugu lahayd dekeda Berbera ee Somaliland waxayna qorsheynaysaa inay adeegyadeeda dhoofinta iyo wax soo dejinta 30% u isticmaasho dekeda magaalada Berbera halka 10% ay u qorsheysay dekeda Port Sudan lana filayo inta kale inay u isticmaasho dekeda Djibouti sida dhawaan ay baahisay warbaahinta Itoobiya maray booqatay dekeda magaalada Berbera. damaca cusub ee Itoobiya ay ku raadinayso xuduud ciidan oo dhanka badda ah ayaan la ogeyn halka uu ku wajahan yahay waxayna Somaliland hadda ka hor martigelisay saldhig Berbera ay ka siisay wadamada Imaaraadka Carabta. dadka Soomaaliyeed oo calaad gaamurtay ay kala dhaxaysa dalka Itoobiya ayaa aad uga walaacsan damacani cusub ee Itoobiya ay ku doonayso inay ku dhisto ciidamo badeed lamana oga cida ay ciidamadaasi bad u dhisanayso iyo waxay isaga difaacayso toona.